غرباء غرباء غرباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى ما أنت وحن جعله إن إذن لوذاقه قصة أن أقوم عدري إلى هديدكي إيمانكي حوجيي أني قاعد أحمر أيو آلد لغو كلمة أما برت لغو كلمة فيسبوك باوحان إسأرقني نين صومالي oo sheegto badanaa inuu yahay mulxid. Markaas baan waxaan arkay meel uu faalla ka bixiyay ama comment uu ka bixiyay uu ku leeyahay Allah ma jiro. Markaas baan waxaan ku iri su'aal intaan weydiiyay Allah inuusan jirin maxaa caddeyn u haysaa. Markaas wuxuu yiri Qur'aanka iyo xadiidka baan akhriyay waxaana ka buuxa waxyaabo been aan la rumaysan karin. Arrintaasana caddaynaysa inuusan jirin maadaama Qur'aanka uu yahay hadalkiisa. Markaas baan waxaan ku iri su'aal aan ku weydiiyay wax yar ka hor waxa igu tiri Allah ma jiro. Marka shay aan jirin sidee wax loogu soo warin karaa. Marka arrintaas waxayna tusinaysaa inuu ninkaas iskhilaafayo asagoonan iska warqabin uu caddaynayo inuu Allah subxaanahu wa tacaala jiro. Sababtu shay aanan jirin ma dhihi karno wax baa laga soo wariyay ama wax baa laga soo guuriyay ma dhihi karno. Markuu hadalladaas igu yiri waxaa maskaxdeeda ku soo dhacday aayad ku jirta Qur'aanka Kariimka gaar ahaan aayad ku jirta suuratul Aali Cimraan oo Allah subxaanahu wa tacaala leeyahay الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. مرك مؤمنين تلقوا لها كعب صدى قوم بإذن كل مية وربنا إذن لدقالان وحي أزياد مؤمنين إيمان وحين الآن حسبنا الله سبحانه وتعالى بانغفل بيدان waxayna dhahaan cid la tala saarto Allah subxaanahu wa tacaala baa ugu wanaagsan. Marka Allah subxaanahu wa tacaala iimaanka ha inoo xoojiyo, iimaankan Allah subxaanahu wa tacaala ha inoogu sugo. Qisadaas baan jeclaysta maanta inaan idinla wadaago. Allah subxaanahu wa tacaala hana oofsado anagoo mu'miniin uu raalina naga yahay.